بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرنا وعيس قبحوق سياسة يا هوله هذا ما تشعلين إنا وحكو درصدو وأنيقو سياسي ميه صدح هذا حسبنا كما مديه لكن دنت جود إيا نبتقليدا وحن كمدا هاي انت كشقيسا اتشعل إني هقاقتو دوان وحن صودري فريني ما سوان كو قرب استاقي لبدا مشرح ee maroodijeex iyo hargeysa u hiiliyeen ee soo baxay waa xildhibaan barkhad iyo xildhibaan mooge waxay ku soo baxeen dareen shacab maanta waxaan ku darsanayaa taladii intan xisbiyada mucaaradka ah hal ayaan oranayaa shacabka gobta ee midaysanna hal baan oranayaa cabdikariin mooge hal baan gaar u oranayaa madaxweyne muuse bixina hal baan oranayaa golaha deegaanka ee hargeysana mid baan gaar u oranayaa xisbiyada mucaaradka ah mid baan oranayaa maanta waxay hesheen fursad aan hore idiin soo marin dibna laga yaabo inaanay idiin soo marin waxay noqotay aqlabiyadii dadka inaa guddoonka baarlamanka iyo deegaanka qabsataan oo u qabsataan inaa ku fushataan sidii idiin caadada ahayd darihiina khaaska ah ku jiqsi iyo yaan ururada la furin macno u samayn mayso dadku waxay eegayaan sidaa ka yeeshaan hal doorkii ay aqlabiyadda codkooda ku siiyeen ee aa caqabada ku tihiin dadku waxay ogaan doonaan cidda aad u doorataan maanta inay yihiin ciddii aa u doori lahaydeen berito haddii aad talada ku guulaysataan maanta waxaa la eegayaa inaad wax ka beddeshaan dhaqankiinnii ahaa inaad qof kastoo wanaagsan xagga dambe marisaan si aanu u muuqan iyo inaydaan fursad siin qofka fiican ee dadka danahooda ka shaqaynaya ee doonistooda ku soo baxay xisbiyada mucaaradka ah intaa u dhaafi maayo shacabka gobta ee maroodijeex iyo hargeysa waxaan leeyahay waa doorateen fariintiinniina waa gudbiseen waxaad cod dheer ku gudbiseen tuug baa midgaan ah waxaa cod dheer ku gudbiseen inaad isbeddel doonaysaan waxaad ku gudbiseen inaad beelo iyo xaafado macnahaan ay idiin samaynayn ee aa u baahan tihiin cid wax idiin qabata halgankiinnii weli ma dhammaan aad mooge iyo barkhada ku doorateen waxaad ogaataan caqabadda ugu weyn ee hortaagan inay yihiin kuwa aan doonaynin qof wanaagsani soo baxo si uu iyaga u fashiliyo waxaa hortaagan saddexda xisbi oo mabda'a tolaayayda ku macaasha oo aan ogolaan karin qof cod shacab ku soo baxa oo aan cod beel ku soo bixin waxa uu halis ku yahay barnaamijyada ay ku ololeeyaan ee taa ku xisaabtama waxaa la idinka doonayaa inaad garab istaagtaan ilaa aad doonistiinnii iyo doorashadiinnii ay suurtagal noqonayso cabdikariin axmed mooge hal baan odhanayaa anigu shakhsiyan kuma aqaano waxaan kugula ololeeyey isku jifa ma nihin waxaan kugula ololeeyey inta reer hargeysa kugula ololeeyeyna kugu doorteen oo ahayd tay kugu garab istaageen hadalladaadii iyo dareenkaagii wada socday iyo ballanqaadyadii oo dareenkaagu ka turjumayey inaad ka rumaynayso haddii fursaddaa lagu siiyo oo allah xaggiisa ay ka ahaato oo inta xumaha inay qooshato rabtaa kaa hor istaagin imtixaan ayaad gelaysaa ee ballamahaagii fuli waana ku kalsoonahay inaad fulin doonto haddii kuwaan filayaa ku garbiyaan oo kaa hor istaagaan sidaan ku aqaanay ama filayo ha ku raali noqon ku-xigeen iyo xubin midna inaad ka sii mid ahaato golaha deegaanka ee iska casib maxaa yeelay suurtagal kuma noqon doonto inaad wixii dadku kuu doorteen aad fuliso markaa ha lumin kalsoonidii shacabku ku siiyeen maalin kale iyo meel kale ayaad la sugi waxayna taasi sii siyaadin doontaa kalsoonidii shacabka oo aad xaqiijisay wixii aad doonaysay inaanay ahayn masab ee ay ahayd inaad wax u qabato madaxweyne muuse biixi midh baan odhanayaa ugu horreyn waxaan ugu hambalyeynayaa doorashada nadiifta ah ee aan farangelinta lahayn ee uu qabtay iyo sida sharafta leh ee aad natiijadeeda u aqbashay oo aan ahayn mid xagga mucaaradka marnaba suurtagal ka ahaateen waxaanse leeyahay waa haddii axankun raacaaye doorashooyinkii maayarada iyo deegaanada faraha uga qaad weliba ka hargeysa doorashada shacabka ku taageer oo mooge ku dhis guddoonka baarlamaanka loolankiisu madaxweyne waa kuu furan yahay isaga kama hadlayo
mudane madaxweyne waxaan kaloo ku soo gabagabayn lahaa ummaddu ha kuu ducaysee ururada u fur inta aan guurtida xilku ka dhammaan si ummaddu ciyaartan uga raysato xildhibaanada golaha deegaanka ee Hargeysa iyagana 40 fariinta ayaan u dirayaa suugaan baan ugu dirayaa afareydan baan iyagana u gudbinayaa wuxuu yidhi inamada la doortiyo haddaan ururada u baaqo waa erey Hargeysa ka yimi ololaheedii abhin weeye ay soo direen idil dadweyniye waa amaano culus oo xilkani la isku aaminaye waxa alif mabruug loo yidhi loo ilka cadeeyay inan ka idmani waa inuu oday ahaadaaye waa inaan afkaartiisa wacan ku intifaacnaaye idina doortayaanaan hadhow eersan taladiine yaanaan awaadhina nin kale ha u aroosina uumiyaha codkoodiiyo wixii odaya luudaayey ama uun umulo maalintaa umasku leefaayey inta araggu naafadayahee oo ogtii sare toostay islaamaaba lay sheegay iyo duulitaal darane waar hooy inkaar baa jirtay ha axan seegina ninkanay ishaarteen ee cid kale ha u aftuubina buu yidhi ninkanay ishaarteen ee cid kale ha u aftuubina